بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وبرنامجكeenii hoga tusaaleen toosin iyo tilmaan muddo dheer iskumayna soo noqon waxba iskumayna oran waxa isku dambeysay inagoo markaa ku kala tagnay bal inaynu fursad siino oo eegno xukuumadda markaa la doortay si ay u dhamaysato muddadii boqolka cashayd ay qabsatay saddexdii bilood u dhamaysato kadibna inuu wixii markaa inoo muuqdo xukunahno 310 habeen ku dhubay caawa jirta 300 guridiis waxa ku soo wareegtay kulankii sanadlaha ahaa ee madaxweynayaashii soo maray labada gole wada jirka ugu jeedin kareen wakii hadlay ilaahay xamdigii wax badan oo maanta naano aynu haynaa muddada 300 ku siman dhacdooyin tiro badan ayaa dhacay dhacdooyinaan hore inuu ugu muuqan iyo kuwa muuqday oo raadkii hore ee xukuumadii kulmiye ka tagtay ayaa muuqda waxaanu eegaynaa oo ka hadli doonaa isbedelada muddooyinka boqolka cashayn ka aamusnayn ku yimi xisbiga wadani xisbiga isbedel doonka ummadda runtii hanka weyn u qabtay xisbigan aaminsaneen codkiisii ummaddu siisay laga boobay xisbigan qabna inuu ahaa rajada ummaddu lahayd waanu manana tawadani doona ka horeyno in dhacdooyinkii muddada boqolka cashayn soo maray waxyaabay runtii ugu waaweynaa bulshadu aad ka isha ugu haysay waxa kamid ahaa nooci uu koreysay amba uu dhisay dawladiisa waan dhameystirnayn dadkii soo xulanayay nooc ay haayeen hanaanka nooc ugu tirnayay waxa inagu horeysay xukuumad qoys ka taliyo oo qoyskii reersiil ay ka talin jireen oo runtii ayadoo markaa loo sawir saarayay in madaxweynaha xukunka hayo waxa nin bukaana oo waxyaabo fara badan aan uga maarmi kareynin in qoyskiisu iyo xigaaladiisa hoose ay marada saarto oo la wado ayaa waxaan filaynay in ugu yaraan inkastoo aan waxba istoorin haddana ugu yaraan ninkan maanta xukunka haya uu kaga duwanaan doono nin taamo xukunkiisa iyo garaadkiisa loo yahay ayaan daro taaxbis kama doorin haddii arkaysaan haddaba madaxtooyada gudaheedii inta ku xeersan inta waxaa wadanaysa waa in isku jufo ah oo hoos isku urursatay min agaasime ilaa wasiir marka laga bilaabo haddii siilaanyo loogu duul xulayay odhan jireen waa bukaa oo bukaankan yaan looga faa'iideysan ku asturena saas lamada muusan maanta wuxuu boqolada soo urustay qeyl ka dhiganaysa waa askari aan xukuumada wax badan ka garanayn oo in marada iyo xukunka iyo hanaanka dastuuriga lagu hayaa macnu waxa weyn oo horta in isbedelo inoo muuqda ma jiro boqolkii cisho maxaa qabsamay boqolkii cisho waxyaabihii soconayay waxa kamid ah nooci uu dhisay dawladiisa agaasimayaal tiro badan iyo xukuumadda dhowr jeer 3-4 jeer iska soo daba magacaabay baa jiray waxyaabaha runtii calaamadaha la yaabka lahaa ee muuqanaya waxay hayeen xukuumadahaas boqolkiiba 78 in ka badan waxay ka simeeyeen in jufooyinka isagoo aaminsan in xukunka saareen jeegaanta leeyahay markuu boqolkiiba 70 inta ka furiyeelo ayaa 20 ka soo haray wuxuu qaybiyay Soomaaliland oo dhan min daraf ilaa daraf min harti ilaa samaroon ilaa isaaqa kale ilhaamihooda inta u dhaxaysa ayaa 20 ka runtii lagu furdhiyaa waxa markaa soo baxaysa oo inoo soo baxday oo banaanka taala dawlad boqolkiiba 80 jeegan ah 20 marka ummadaha kale Soomaaliland kamid lagu dhex firdhay oo aanay runtii qarin karayn deeliga iyo qabyaalada iyo istir ku dhisnaashaha dawladda ka muuqday la ciiraya aanay marka 20 ka soo u noqonaynin meed maxaa u dambeeyay baa la dhigay kala siido waxa u dambeeyay kuwa shalay magacaabay 14 xubnood oo kamid ah oo jeegaanta ka soo magacaabay 22 isagoo magacaabay 8 kamidna waxa uu magacaabay ummadda Soomaaliland kale dalka degan waa saami ka basaraya boqolkiiba 80 oo tan shalay kale hadii laga dulqaato waxa noqonaysa in boqolkiiba 85 uu jeegaanteen marka dadka magacaabay haayeen boqolkiiba 15 ay ummadda kale Soomaaliland ka soo qaadeen waxa weeye marka boqolka cishay inoo muuqday waxa inoo soo baxday xukuumad haddaysan kaba fool xumayn aan waxba ka duwanayntiisii laayay 7 sano waddankan soo halagtay boqolkaas inuu xukunka hayay waxa dalka halakeeyay oo ruuxay oo runtii meel walba taabtay sixir barar nolol xumo iyo dhaqaale la'aan halkii laga filayay inuu xal maan qaba oo ummaddu runtii maanta nafaheeda iyo nafaha dalkan lagu badbaadiyo oo keeno ayaa waxa markiiba dana siyaasi ay farta ugu fiiqeen shirkado la tuhmayo oo lagu tuhmayo inaysan isaga xulafo laahayn amba shirkado kale isagoo xulafo leeyahay ay isaga ay iska soo horjeedaan waa kii duulaanka cad ku qaaday shirkadda Telesom 3 wareegto kala dambeeyay $100 wax ka riyaan saadka laga dhigin waa tii shirkadu aqbashay
haddana waa tii lacagtii shilin Soomaaliya ka ahayd shirkadu saad ku dhex sarrifaysay ee gudaha Soomaaliya laga dhex gadanayay ka dabay midayaan la sameyn shirkadda Telesom waa shirkad Soomaaliland oo leedahay waa shirkad ishkaas ka kooban waa shirkad dad isku tagay waa shirkad aan saamigeedu meel isku raaci kara boqolkiiba konton ma cid ma jirto waa shirkad dad runtii xoogsata oo reer Soomaaliland qof wax ku darsaday waana shirka ugu weyn ee ummadda Soomaaliland leedahay socday ee tis qaaday faa'iidada ijtimaacu leeyahay ka badnaata dhaqaale doonka iyo wada shirkadaha faa'iido doona oo waxa runtii ay bulshada soo galiyaan iyo kay doonayaan mar walba iyagu kay doonayaan badan waana qaabka ganacsiga iyo runtii capitalismka dunida oo ku saleysan yahay oo mar walba maxay danaysiga ayaa ka badan maxay u danaynta saasay tahay haddana waxa ahayd in Soomaaliland intii isugu tagtay ay wax isugu hagaajisatay meel martay waxa isha dhaqaale iyo shirkadda loo duminaya oo loo daba socda shirkado isaga runtii xuquuq saaray oo monopoly oo runtii shakhsiyaad leeyahay oo dana siyaasadeed ku jira oo loo xiray isagana tusayna xisbiga saareen xaaladda markaa ahayd dawada loo helay sixir bararku waxba kama tagin dalka bay baabisay maanta lacagtii Soomaaliland waxay maraysaa heeraysan weligeed gaarin talaabo kasta oo Telesom qaado laga daba tagay xal uma noqon dhibaatadii meesha taalay shilinkii Soomaaliland uu sii burburayaa waxa barbar socda in ayuna lacag 3 bilyan oo shilin ah oo warqada ay Hindiya ka soo daabacdeen oo dadkii kaga urursanayaan noodkii dollarka hay'adka ay meesha dhex yaalay dabeetana waxa wadankiisa ku dhex wareerayo sida qashinka tuulmay lacag Soomaaliland $20 hadda sarifata waxaad u baahanaysaa kariyoone waxaad u baahantaa qof kula walwala wala dbac weyn qaadata oo harraha laga maraa waxay nolosha kaaga goynaysaa ma jiro lacagtu markay dibadiisa ku yeelan wadi gudayn wax ka jari mayso oo ninka ganacsadaha ee Gimbarta shilin Soomaaliland ah ee warqadaha walwaalaya haddii $1 adagoo ku bedeshay helayno ay dollar u gooyeen dibadina waxba kama soo iibsan karayo iyadana lacag dibadda loo qaato ma مسيبينك نوع عاسي ودنا كوي قلقلين ويسعدين هبا يراتي وح وكقاضي وينوم مقدمة جرتو إن حالدها أمن الدراء دلك كجرة وحسي كردي وسي حمادي مويا حبا كمتين وحكلين أغنهاي إن هشيس حكومة هراء سيلان يسوي ودي ودكده بربرة لوجو جيني شركة دي بي وال إمارات كلجلي هي أسي بلاري هشيس كده الكيتوبيا بقصة دري أو بقول كبس سجالي تمنيس جوسي هشيس كلا ما هو إثيوبيا وحين نقول بقول كبس سجالي تمن كارد عفسي سنة وحين نقول بدليسو بس الحد ينقول شرطة يسوون اللفت يصور كما هيو وضد كده أنت لهم بكل يوم تسايشة سيدين بانو يالي وقت رواكي وسير كرمها تبدل ودي اللي يقول ورم حالك وأن وحوضنا تذكر نينكا حقويني كهر عرون وجهدي تذكر نبقى قبستاني وحين نبقى مرمان يا نجا قبنا يو أدون كانوا مرقاتيا ومغلسن وحي ورنتي يدي بريتين باينا كلا سارسا ده بريتين له شيء نقيبنا كماها إذا حكمنا ودسينا حنو كم يدين ساسا يتاي واحد عيب بقول كي عشية وحكم كهي دبعتي ما وين ورنتي مصير كمدن تعبانية سليق بيس كا ميليتريكا مقالة بربرة والصحيحي إلا كينيا aan maslaxadii noogu jirtaa jirin aan shaqo abuur lahayn aan dhaqaale noogu soo kordhinaynin aynaan kara dhaafsanin oo adduunkan wax ku soo kordhinayaan u jirin wuxuu ka soo bixi doontaa in askarta dharagtay carabta ee caloosha shaqeeyaasha ay hableen habeen mid suuqa ka kaxaystaan kadibna intii suuqyada istaagnayn mudaharaadna adduunka naga soo gaara in hablaha iyagii baayn carab halkan ku haystaa in ciibaheena halka ka faafan in ninka xoog weyn oo aad ka baxawdan karin oo 30 sano dalka gaad xoog ku siisay cidina kala hadli doonin dhibaatooyinka waxa ka galgalatay dawladda Soomaaliya inkastoo runtii qaabka uga galgalatay ay tahay qaab siyaasadeed oo masiirka Soomaaliland ay iyaduna muran galinayso oo ay isku khaldayso runtii waxa meesha yaala iyo wax wada waxa aan islahayn ay tahay haddana way galgalatay galgalashadaas runtii waa mid dareen walaaltinimo u sameeyay bulshada Soomaaliland waayo ninka daalin iyo cadow kugu soo hogaamiyay iyo ka kula war iska day warkada dadka cadowga waxaad arkaysaa dama masiirka u dhaxeeya ku yahay xukuumadda Soomaaliya talaabooyinka ay qaaday ee arinta ka galgalatay waa amur soo dhaweynteeda leh laakiin waxaan uga digaynaa Soomaaliya uga digaynaa inaysan arinta siyaasadeyn oo arinta masiiriga ee ummadda reer Soomaaliland dooratay inay madax banaanida qaadataa aysan ahayn arin sheeganta shuqul ku leh aysan ahayn arin gobolnimo shuqul ku leh aysan ahayn arin cid gaar ah wadato Soomaaliland bulshadeeda oo dhan baa ka siman maanta aftida dalkan loo qaaday ee madaxda banaanida ku saabsan masiibada runtii jeegamiska iyo qabyaalada iyo takoorku waxay ka dhex dhalatay maamul xumadii
iyo hoggaan xumadii dalka ka jirtay laakiin ilaa maanta hadii doonto haba daciiftay laakiin ilaa maanta majority-ga Somaliland iyadoo cidina cid qasbaysan jirin ayaa cod aqlabiyada waxay ku taageersiiyeen inay ayahooda ka tashadaan sidaasna waxaanu ka codsanay dowladda Soomaaliya ay rabitaanka ummadda tixgeliso in wixii taageero ah ay dad noo tarayso aanay siyaasadayn oo markaa aan dii wixii wadahal bacad lagu leeyahay noqonin waan soo dhaweynaa inay heshiisyada dulmiga ah Ethiopia 19 dalkeena ku qabsatay ay ka hadasho waan soo dhaweynaa saldhigga military anfaca noolahayn dalkeena la keenay joojiso hadii waxba ka qaban karto waan soo dhaweynaa inay ka hadasho dulmiyada waaweyn ee xukuumadda jeegaantu wado laakiin barnaba soo dhaweyn mayno in masiirka dalnimadayada iyo dadnimadeeda ay qalanqal geliso boqolka cisho ee maanta u soo dhamaanaya ee ku jira waxay ku jirtaa ay taagan tahay isagoo kolba jahaw cararaya oo rafanaya waa ogtiino khudbadii dalka marka la weydiiyay waxa uu yiri wixii aan qabtay waxa kamid ah dalkan ayaan duulay oo Soomaaliland xuduudeeda gaadhay ma duulin tuulada Tukaraq oo marka hore ciidamada Soomaaliland ay joogeen 3 kilomitir meel u jirta ayaa shaqaaqa ka dhacday 3 kilomitir ma 3 kilomitir kala dhanka kala u dhaafeen wax weyn oo la soo kordhiyo oo la sheega ma ahayn Tukaraq dhulkeena bay ahayd hadii uu tagay hadii aan tagin meel inagu leenahay bay ahayd meel cadow buuran oo awood loo inaga haystay oo hor joogay ma jirin marka tuulada Tukaraq oo 6 kilomitir marka la isku daro dhulka ciidanku tagay laga hadlayo waxa ka badan baahiyaha kale ee dalka yaala khalkhalgelinta kale ee wadanka ka jirta hanaanka siyaasadda xumeyga dalka ka jirta ee taala runtii kama hadal waxa xadkaha goostay oo runtii aynan haro orag musuqmaasuqu heer ku marayo shirkadaha la sameystay dad gaari leeyihiin ninka Saacad Cali Shire leehdo iyo wasaaradda hore maaliyadda ay jirtay xukuumaddiisa iyo shirkad bay furteen ay iyagu owner ka yihiin oo isku qoreen oo magacyadoodu ku yaalaan oo haddana leeyihiin waa shirkad Somaliland leedahay waxa shirkadda runtii ka shaqeynaysa 3 geesood ninka Siilaayi Sudago waxaan jiray haddana safiirka ugu magacaaban Imaaraadka Samsam iyo Saacad Cali Shire waxay runtii ka mid tahay dhibaatooyinka dalka yaaleedaan qarsami karayn musuqa faraha lagu jiraan qarsoomaynin in kama hadal ummadda sharaxaad uga bixin hanaanka cadaaladda iyo garsoorka ee lagu tumanayo ee inta qof xidhaneen ognahay kama hadal dadka rayigooda loo qabtay ee afla taabtay kama hadal waa ogeydeen oo dad waxa jira dad eriya ay iyagu hadleen lagu xidhay oo xabsiyada loo dhigay oo aan qof lahayn uma muuqato runtii hanaankeena garsoorka iyo cadaaladda iyo xornimada ee baaba'aya uma muuqdo sixir bararkii uma muuqato oo mataalo waxa jira ceebo iyo fadeexado ay faraha la galeen qaybo kamid ah golihiisa wasiirada tusaalahan wasiirkan wasaaradda dhaqanka iyo warfaafinta u qaabilsan wasiirkaas waxa uu ku gafay oo uu caayay ummada dhan oo reer Somaliland kamid ah waxa uu caayay hablaha garxajis waxa uu qoray gabayo ku tiri ku teena oo caay ah oo meel allaale iyo meel sal iyo raad ku leeyin jirin oo cid sugatay jiritaankooda iyo ciddii jiritoona aysan jirin ayuu intuu soo qaaday si bareer buugaag ugu qoray adduunka oo dhan waa ceeb ma jirto buug dunida qof intuu cid ku xadgudbo ummaddiin iyo qoomiyad intuu ku xadgudbo kadibna buu ka qorayna waa taariikh ma jirto ma qof la caayayo oo ceebtiisa ummadda dhigaysa taariikh dhigi karta oo waxaan runtii maan gal karin ninka madaxweynihii waa dugsanaya wasiirka laftigiisa ceebaha waa dugsanaya waa hor fadhiya kama hadal kala qaybsanaanta iyo kala tag ummadda halkeedii buu ka sii socdaa habeenba wuxuu isku dayay inuu dadka xamar bay nagu soo duulaysa afka u galiyo laakiin runtii xamar bay nagu soo duulaysa maanta cid ku kacmayso oo narkayna xamar waxay ka dhiididay oo ka heelisay dhibaatooyinka oo ninkan maanta faraay inoo galiyay saa markay tahay ummadda uma sawiri karo riya beena Somaliland maanta iyadoo bay soo taala inay ka tashato dhibta dhex taala cidina cid kale kuma soo duusho xamarna awood ma lahay Somaliland ku soo duusho waxay ku tartamayo waxay ka dhimayso maanta inoo muuqda ma jiro waa inaan arinta uu qarinayo ee masiirkeena taabanaysa ee dalnimadeena taabanaysa ee madaxbanaanideena taabanaysa la cadeeyaa ogolayaasha baarlamaanka umadu doortay loo cadeeyaa oo dadka loo sharaxayo la tusaa halka ku yimaadeen iyo halka ku lug leeyihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa maanta runtii dib soo laabano barnaamijkan hadda taxana noqon doonaan boqolkii maalmood ee aamusnayn boqol dama bay hayeen boqol aan geed soo kordhin bay hayeen boqol aan dalka xabal lagu soo kordhin bay hayeen boqol qabyaalada barteedii ka soo socotay bay ahayd boqol xaqdiga iyo kala qaybinta ummadda halkeedii ka sii socotay bay ahayd boqol musuq sii socday bay ahayd boqol cadaalad darradii sii socotay bay ahayd boqol sidii saxaafadda afka loo hayo loo caburinayay bay ahayd boqol waxaan isbedeli jirin weeye waxaan ka tusaale qaadanaynaa boqolkaas in 3 sano iyo barka u hadhayna 4 sano iyo inta u hadhayna aan maanta waxba isbedeli doonin in arrinku saasan socon doono halka joogo macna waxa weeye isma doorin gaalkan dariya daarta ka galay
saasi hanaysa waxaan doonayaa gabagabadeeda inaan hal erin ku soo gabagabiyo xisbiga cadaaladda ana xisbiga umadu dooratay isbedel doonka ee wadani xisbigaas runtii umad aad bay ugu hanweyneed ayaan darada dhacday waatan marar badan ka hadalay talaabooyinka maanta hogaamiyaha xisbigaas uu qaaday ee ah in kalsoonidii lagala laabto nimankii tuugtaha ee ummadan masiirkoodii codkoodii dadnimadoodii iyo hogaanimadoodii rabitaankoodii muranka galiyay waa talaabo aad iyo aad runtii ugu hambalyeynayno gudoomiyaha xisbiga waa talaabo aan ku taageerino waa talaabo ay tahay sida ugu dhaqsaha badan loo fuliyo nimankani waxay khalkhal galiyeen masiirka ummadda nimankani waxa ay sababeen musuq nimankani waxay sababeen waxay sababeen kushubasho waxay sabab u hayeen dhimashada dad ka badan 220 qof oo dhiigkiisa daatay oo uu qubtay oo la laayay oo iyaga codkii iyo madmadowgii doorashadii loo dareeray galiyeen dartood u dhacay waan soo dhaweynaynaa in la diriyo waxaan xisbiga ugu baaqaynaa inaan hawlaha isbedel ee loo baahan yahay in la qabto aysan inta ku ekeyn waxa jira meelo fara badan iyo goobo fara badan oo intoomeyno waxa jira basaasin fara badan oo xisbiga lagu dhex darsaday waxa jira dad fara badan oo madbtiga ugu jiraan xisbiga iyo waxaan moodaynaa ay kala duran tahay runtii dadkaas way soo baxeen intii doorashada ka dambeysay waa dad cad oo maryaha dhigtay aan qarsoodi lahayn waa in dadka xisbiga talaabo ka qaada si xisbinimada xisbiga u socoto si awoodda xisbiga loo nooleeyo si looga gaashaato runtii faquuqa cunsuriga iyo kala sooca ummadda jeegaan wato waa in xisbiga laga tumaa runtii siyada laga tumaa waa in talaabooyinka la qaataa waa in shakhsiyaadka madaxa inagula jira laakiin halkay niyadoodu tahay in ognahay aynu banaanka dhignaa waxba inaan la isku qarsan baa waajiba talaabada lagu kala diray tuugta ee xisbiga kalsoonida kala laabtay waa talaabo hambaliyay mudan waa talaabo runtii soo dhaweyn waa arkaysan door hotel markii saxaafadu weydiisay in Muuse ay ku tiri kursiga dhiig baa ku daatay oo in ka badan 26 qof baa loo dilay halkii Allah ka naxariisto oran lahaa waa kiireen waxa mas'uuliyadda ku soo abaabulay dadku isagu dilay ee xabada la dhacay ee isaga rasaastiisa u dhintay buu kulay waxa mas'uuliyadda ku soo abaabulay ilaahayna uu arkaya ummaduna way arkaysaa ciidan mas'uulka ah waxa mas'uulka ninkii xabada ku dhuftay waxa mas'uulka ninkii askariga jaahilka qoriga u soo dhiibay ninka qofka mudaharaada iyo gacmaha taagaya hadlayaan xabad iyo dhagax toona wadan xabada ku dhufay ka mas'uula Muuse ka mas'uula jeegaanta ka mas'uula tuugta imaka la kala eriyay komishanka uu sheegaya mas'uulka barnaamijkan maanta intaasna ku soo gabagaynaa maanta aad buu dheeriyo 16 marin ku siman qaybaha dambe barnaamijyada waa 9 mar ku koobnaan doonaan sida caadiga ahaydna maalinba wixii taagan baan uga hadlaynaa waan soconaa hadda wixii ka dambeeya cidna loo joojin maayo guul baynu rajaynaa Soomaaliland badhaan rajaynaa dalkana Allah ka saar dhibaatada Allah ka saar sixir bararka iyo nolol xumada ee faqriga isku dirka iyo kala qaybinta qabyaaladda Allah jabiyo cidda taageertana Allah jabiyo aad iyo aad baan salaam